qaar ka mid ah guddiga wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha ee degmooyinka maxamuud haybe iyo maxamed mooge magaalada Hargeysa ayaa bulshada ku dhaqan xaafadaasi waxay ugu baaqeen inay qaataan kaarka codbixiyayaasha waxaana soo kormeereen goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaashu ugu horeyn Cabdifataax Fatoor Maxamed Khadar Daahir iyo Dr. Cagaweyne iyo waliba Xuseen Aw Cumar ayaa dadweynaha ku wacyigeliyay inay qaataan kaarka codbixinta waxaana ka mid ah hadaladoodii ruuxantii si fiican ay u socotay ololaha diiwaangelinta kaar qaadashada ee doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee nagu soo foodo leh hawshan oo ah ruuxantii hawl baaxad weyn horena uga soo shaqeeyay ururka danjire waxaan ku shaqeynaynay tiimkaygaas oo degmo walba ay noo joogeen xubno ka mid ah xubnaha danjire kuwaasoo wacyigelinta ka qayb qaadanayay dadka waxaan ugu yeeraynay ugu baaqaynay doorkan ku leenahay arrimaha bulshada iyo horumarinta bulshadaba waxaan ugu baaqaynay inay kaarka qaataan inay xaq u leeyihiin inay kaar qaadasho tahay waajib dastuuriya ayaan tusaynay laba arrimood ma jeclaan lahaa inaan arrintan ii sheegay aan ku baraarujiyo mid waxa weeyaan shacbiga halkan degan oo aan ka rabno runtii maanta fursadan ay haystaan inay ka faa'iideystaan diiwaangelinta u soo baxaan maanta ay qaataan ii sheegay kaarkooda ay maanta isu diiwaangeliyaan qodobo waa kaa haddii aanay maanta taa samaynin waxa weeyaan fursadaas way dhaafi doontaa mana heli doonaan muddo dheer taas waa kow arrinta labaad walaal waxa weeyaan cabashooyin fara badan oo maanta naloo soo sheegay oo ilaa shalay toole jiray waxaan ka codsanaynaa komishanka doorashooyinka qaranka inay si gaara u eegaan xaafadan imika maxamuud haybe iyo maxamed mooge oo aan ku sugannahay waa fursad qaali ah inaynu kaarka mar labaad inoo furo marka waxaan leeyahay ummadda dhammaan intii aan hore u qaadan inay maanta qaata kaarkaas wuxuu tarayaa inaad codkaaga xildhibaanka doonto iyo madaxweynaha doonto iyo aad soo dooran karto waxa ku xiran tiradeenna waxa ku xiran caafimaadkeenna waxa ku xiran waxbarashadeenna biyaheena tirada dadka marka waxaan leeyahay qof walba maanta jaaniska aad heshay halaga faa'iideyso waa fursad qaali ah oo aan muddo sugaynay oo waan ku maadsan komishanka doorashooyinka inay inoo soo horeysiyaan muddo aynu ku sii qaadano kaarka marka waxaan leeyahay doonayaa markaa waxaan leeyahay dadka degan Hargeysa waxay ka socoto gobolka Marsajaa hal la qaato kaarka halkan waxaan uga faa'iideysan fursadda soo dhalinyarada Soomaaliland ee aan diiwaangelinta hore helin inay codkooda aad iyo aad si fiican u qaataan u hawlgalaan u socdaan aad iyo aad isbaraarujiyaan walaalayaal si fiican inay u baxdaan oo maanta waa fursad qaali oo soo martay maanta fursadaas oo inaan hore helin mar labaad ilaahay inoo soo celiyay inay mustaqbalno dhalinyaradeenii fursadaas oo 10 sanadood inaan kaarka dib loo furay uga faa'iideysana waqtiga maanta jooga dhalinyarada maanta looga faa'iideeyo bulshada qaranku aad uga faa'iideeyo aad iyo aad bulshada qaranku waan amaanaya dawladdeena waan amaanaya dadkeena waan amaanaya si fiican fursada walaalayaal looga wada faa'iideysto